asalaamu calaykum asxaabta ku xiran kanaalka salaan kadib waxaan rajaynayaa qof kastoo muuqaalkan daawanaya inuu ku soo gaaray asigoo caafimaad qaba anna sidoo kale anigoo caafimaad qaba ayaan idin soo gudbinayaa sida caadiga ah ra'iisul wasaarihii hore dalka Pakistan Imran Khan waxaa lagu yaqaanaa qof ku mayal adag diinta islaamka sidoo kalena u damqada wadamada islaamka aadna loogu jecel yahay dunida islaamka iyo sidoo kale wadankiisaba haddii aad ka mid tahay dadka jecel Imran Khan qodobada aan maanta ku sheegi doona ayaa ka sii dhigi doona mid aad u sii jecelaada balse haddii aad ka mid tahay dadka aanan jecelayn sidoo kale qodobadan ayaa ka dhigi doona kuwa ku jecelaysiya Imran Khan ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta toddobiyo tobankii February 2019 oo hadda laga joogo muddo 5 sano ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan waxa uu booqasho ku tagay dalka Sacuudiga markii uu tagay dalka Sacuudiga waxa Sacuudiga ku soo dhaweeyay dhaxal sugaha dalka Sacuudiga Mohammed bin Salman soo dhaweyn kadib waxa hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan mahadcelin kadib ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan waxa uu Sacuudiga ka codsaday laba arrimood oo aan aad ula cajabay waa laba arrimood oo qof kastoo muwaadin uu jeclaysan lahaa inuu hogaamiyihiisa codsado haddaba maxay yihiin labadaasi arrin sida caadiga hogaamiye ha ahaado madaxweyne ama ra'iisul wasaare markii uu booqdo dal dhigiisa ama awood ahaan ka sareeya waxa uu codsadaa arrimo badan hadday ahaan lahayd in ciidamo loo tababaro hadday ahaan lahayd in ciidamo mashaarkooda laga bixiyo laakiin Imran Khan intaasba ma uusan codsanin waxa uu codsaday arrin maanta aad jeclaan lahayd inuu codsado madaxweynaha Soomaaliya haddii uu tagi lahaa Sacuudiga haddaba maxay yihiin labadaas arrin ila daawo arrinta koowaad uu ka codsaday dalka Sacuudiga Honestly, just two things I just want to mention. Number one, that we have during Hajj, we have people going to Saudi Arabia, and we would just like to request you, for the sake of the Hajis, that we have immigration done in Pakistan in the three big cities. Reason being that it's easier for Saudi Arabia as well as it's easier for us, and especially for Hajis who save all their money for years to go for Hajj, and some of them are old, so we would just request you that number one, that to allow them to do their immigration in Pakistan. codsiga koowaad oo Imran Khan codsaday waxa uu ahaa in fiisa xadka loo fududeeyo muwaadiniinta Pakistaaniyiinta ah waxa uu dhaxal sugaha u sheegay in dadka reer Pakistan muddo badan ay ku qaadato aruurinta lacagtii ay ku aadi lahayn xajka sidoo kale dhibaato badan ay ka maraan helida fiisaha maadaama fiisaha lagu soo dhameeyo dalka Sacuudiga waxa uu ka codsaday in fiisaha lagu dhameeyo safaaradda Sacuudiga ay ku leedahay dalka Pakistan si ay ugu fududaato muwaadiniinta Pakistaaniyiinta inay helaan fiisaha waxay ku tusaysaa arrintan inuu yahay Imran Khan qof ka warqaba baahiyooyinka yaryar ee bulshadiisa ay qabaan waxay ku tusaysaa in bulshada waxa ka jira dhaxdeeda uu yahay qof ka warhaya yani maanta waxaad jeclaan lahayd haddaad tahay qof Soomaali ah inuu madaxweynaha Soomaaliya dalka Sacuudiga laga hadlo tirada dadka xajka Soomaalida la kordhiyo fiisaha loo fududeeyo waa baahi bulshadeeni ay qabto yani waxay ku tusaysaa inuu yahay Imran Khan qof ka warhaya baahida bulshadiisa ay qabto ila daawo codsiga labaad uu codsaday Imran Khan And secondly, I just wanted to mention that there are 2.5 million Pakistani labor, mostly labor. There are white-collar workers there too. And I just want to say, Your Highness, that these are people very close to my heart. They are very special people who leave their families, who take all the trouble just to go away to earn a livelihood for their families. These are mostly people who don't see their families for a year, 6 months. And so for us, they are very special people. And we would just request you that, it is something which will please the Almighty if we can just treat them. There are some 3,000 prisoners there, and we just would like you to bear in mind that they have poor people who have left their families behind. So just a request that these are very special people for us, this labor which goes abroad for working. And imagine leaving their family and children behind who work hard, send their money back, and we would
a special request from them that, you know, please, sometimes they face hardships, and we would like you to look upon them as your own people. They basically, we feel that this close affinity to Saudi Arabia, we feel that your people are brothers, and we would just like you to have that same feeling for them. Thank you very much. codsiga labaad uu Imraan Khan codsaday waxa uu ahaa waxaa jirta 2,500,000 oo qof oo Bakistaani ah inay ku shaqeeyaan dalka Sacuudiga dhexdiisa intooda badanna ay yihiin dad xoogooda xamaasha ama dadka loo yaqaano laborka waxa uu Sacuudiga ka codsaday in dadkaas loola dhaqmo sida loola dhaqmo dadka u dhashay dalka Sacuudiga yacni dadkiisa oo kale inuu la dhaqmo ayuu ka codsaday waxa uu sheegay inay yihiin dadkaas dad qalbigiisa aad ugu weyn inay yihiin dad uu aad u jecel yahay sababtoo waa dad reerkoodii ehelkoodii ka soo fogaaday si ay ugu shaqeeyaan dartooda yacni waxay ku tusaysaa Imraan Khan inuu ka warhayo dadkiisa baahida ay qabaan haddii ay joogaan dibad iyo dal tusaale ahaan Soomaali maanta dad badan ayaa Sacuudiga jooga dhammaantood iqaamo looma ogola waa dad ku jooga sharci la'aan haddii maanta madaxweynaha dalka Soomaaliya uu codsan lahaa in dadkaasi sharci ay dalku ku joogaan ay ku shaqeysan karaan oo Sacuudiga ka codsado waxay ahaan lahayd arrin ay ku farxaan muwaadiniinta Soomaaliyeed Sacuudiga ma jirto qof dhalashada Sacuudiga la siiyo inta badan ama guud ahaan ma jirtaba qofkii shaqaale ee wadankaas jooga si labor ah ugu shaqeeya inta badan waxa uu ku joogaa waxa loo yaqaano iqaamo iqaamada waxa waaye qof ayaa damiinka noqonayo qofkaas ayaa shaqo ku geynayo salariga ku shaqeynaysa asaga ka mas'uula يعني هدار ربتي شقة أنا كتكتيد وشقة كلا أتكتيد أصون أوين متجي كرتيد يعني ونوع من الاستعبادة حدنا أي قدرت قندين أما أي أجرتين إن يدلك أجو شقيستان أنت سينجع على استيمان تينا إن اللو ذاقو وعدكم هاسنتاي داوشة المقال كان عدي أتكشف فضلا مقال كلايك نوصار سي ودد بدن أجارو سيدو كلا وشير جري أصحاب هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Peace.